بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka cadeynayaa anigoo ah Yuusuf Cabdullaahi Cali oo haray aan u duubay cajalad oo runtii aan ilaa hadda aan ka shalayo oo laygu qalday. waxaan leeyahay dadka dhageysanaya ama daawanayo horta aniga cafis waxaan ku ilaahay weydiisanayaa cafis waan weydiistay mar labaadna waan weydiisanayaa. waxaan kala oon u sheegayaa ummadda muslimiinta Soomaalida inay iska jiraan niman waxaa jiro dadka tashkiiliyo oo runtii meel dheer kula gaarayo ayaga laakiin oo ma qana sixir iyo wixii wataan waxay ku aqrinayaan waraacaysa meel baa lay friisi aniga marka runtii waxaan ku hadlaynay wax lagu hadla ma hayn aniga waxaan ahay nin muslim ah waxaan ku dhashay muslimnimo ilaahayna dambi dhaaf weydiisanayaa. runtii sheekadii haddaan sii wado markii ugu horeysay aniga dadkan tashkiiliyeen shakiya iyo badan iyo waxay soo galeen marka waxaa idin leeyahay iska jiro dadkaasna waxay wataan interest gooni wataan oo way ku shaqeystaan arrimahan qaarkood waxay degan yihiin Kenya qaarkood London qaarkood Norway wax kale kuma shaqeeyaan ay dadka tashkiilaan ay yiraahdaan Soomaaliyan gaal ka dhigayaan lacag u qaadanayna waxaan ayn ma hayaan. waxaan leeyahay dadkaas oo wax iska waan tooba waxaan ilaahay oo la shirkiyo ma jiro qof bini aadan ay leeyihiin waa ilaahay oo 9 bil ku dhashay oo sidoo kale wax uu cabo taasna wax suuragal ma aha. ilaahay waa waahid lamana dhalin waxna ma dhalin asna lama dhalin wuxuu yahay kaligiis. taas ayaa sax ah iyo diinta islaamka ayaa diinta rasmiga oo jirto maanta xaqiiqada ah waxa dhan waa soo ogaaday. marka waxaan ka wana celinayaa oo ugu la talinayaa dadka oo ku shaqeysto arrimahan way badan yihiin dunida joogan Yurub ay joogan Afrika ay joogan in la iska jiro bis isan halaagin dadka sidoo kale isan geerin meelahaas meesha ogaan. ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah maqaldam waa ilaahay wilina tawbada waan haystaa oo naftu way ugu jirtaa oo wili waan caafimaad qabaa marka ilintaas waa ilaahay mahadiis. intaas aan leeyahay waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin. assalaamu calaykum.